السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها نبيجي ugu fadliga badnaa dhammaan nabiyadii la soo diray. Halkan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 qodob oo ka mid ah waxyaabihii uu uga fadliga batay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam nabiyadii ka horeeyay. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabigii ugu dambeeyay ee loo soo diray dhammaan caalamka oo idil. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu helay waxyigii ugu dambeeyay ee dhanka Ilaahay ka yimaada, wuxuuna ahaa Quraanka Kariimka. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noqday nabigii ay raaceen dadkii ugu badnaa markii loo eego nabiyadii asiga ka horeeyay. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu imaam u noqday dhammaan nabiyadii asiga ka horeeyay habeenkii Laylatul Mi'raaj. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waa hogaamiyaha dhammaan bani aadamka oo idil. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noqon doonaa qofka ugu horeeya ee soo bixi doona markii la yiriyo buunka kadib. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noqon doonaa qofka ugu horeeya ee dadka u shafeeco qaadi doona maalinta yawmal qiyaama. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noqon doonaa qofka ugu horeeya ee gooy doona siraadka. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noqon doonaa qofka ugu horeeya ee gala jannada. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa la siin doonaa maqaam al-mahmuud oo ah maqaamkii barakeysanaa. Mawduucana maanta intaan ay ku eg yahay. kulan dambe oo wanaagsan. بعدها لا يضمعون فالشكر إليك يا الله.